السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دمانتي نولا جيبك جوتين ولكن يو مركلة يبغى كله. ما أنت مقال كنا نحكي سبسين هاي دوقاقة محاواي حديلي نك جورك وأنا مرتي كوه يل ما شاء الله أو أفضل عن ماذا يا على البيح سودو channel kaygu soo dhawow asxaabteedu mid ilabo horta intama markii uu rasiigu soo dhaweynay ma ahan okay waxa waaye meeshaan ka dhaxqaday ito okay qadada meeshaan ka saxda ito aan ku dhawahay asxaabtaadana waxaan leeyahay ninkan wuu dimiye kor ha loo kiciyo waxa waaye ma hayo maalmaha muuqaal ma ka hayo thank you haw halasiyo matanid barnaamijkeena horta barnaamijka la socotaa aan hadda saan hore usoo sheegay barnaamijka la socotaa waa la socdaa ii sheeg wareysi waxay ku saabsan tahay wareysiga oo dooqaaga like dhanka guurka muxuu noqon lahay cali su'aalan ku weydiinaa okay joog cali su'aal haddaan ku weydiiyo gabar maxaad ku dooran lahayd oo doorasho sidee ah gabar maxaad ku dooran lahayd oo aad maruuda inay noqoto rabto ama inaad guursato aad rabtid waxaan ku dooran lahaa inay akhlaaq leedahay kow nadaafadeeda waxeeda oo waalidkeedna ay adeecayso saddex ninkeedna ay adeecayso afar oo markii oo ninkeeda hadal uu dhaho ninkeeda maxaa dhahaa markaan hadal aan dhaho oo madaxba inay hoos igeysaa okay inay baariyadii ahayd gabar diin ku dooran lahayd ama gabar wax baratay waa wax la raadinaa intaas gabar wax baratay ama gabar aan wax barno hadda laga keeno wajeer laakiin wajeer dadka wajeer waxay barteen badankooda waxay barteen siiraad horta gacanta ay dhacday hal noqdo qaybta diinta dil laho qof walba wuxuu raadinaa gabar aqoon leh raadinaa okay diin hadii loo waa saan rabeeyo oo haduu ciyaalkeena ayada wax barayso okay dugsi iskoolada wax laga tago faa'iido kale ayada uu fadhiiso okay maxaad leedahay oo aad ku leedahay dadka asxaabteyda ama oo Soomaalida oo aaminsan gabar wax baratay way ka aqli badanaysaa ha guursanin waxaas been waa ayada maskaxda waxa adii wax ka maqan ayada ku soo kordhinayso markaas wax door wax barat dad guursato adin jahil aad tahay ayada wax ku barayso gabadhu wax baratay kaliya ma u roon tahay ilmahaaga ama adin nafsiyan ahaan ku ay ku roon tahay way roon tahay labada dhinac faa'iido tahay maxay dadka qadka uga saarayaan Soomaalideena ay u dhahan gabar wax baratay waa wareer gabar la fahmi kara ma aha way ka aqli badan tahay oo controleysa inta laga baxay dadka saale maxay ku soo arkeen ilaan labadan hadda anigu wali wax ma arag maxay ku soo arkeen isleedahay okay taas ana ku sheegay okay taas markay sidaas ay dhahayaan gabar wax baratay ma rabno iyo waxa markay dhahayaan waxay ka baqayaan in gabadha ma aragtay waa inay shaqeyso camal okay waxaas ay ka baqayaan waxay ka cararayaan in gabadha inay shaqeyso ka cararayaan okay dhanka shaqada soo kulama aha ama ilama aha in laga heshiin karo oo ay heshiin karaan ninkii iyo naagta inay naagta shaqeynayso ama inay shaqeynayeen inay heshiin karaan soo aniga ilama aha anu ila tahay marka waxa guriga laga heshiin karo maxaa looga dhigaa oo loo prefer gareynaa qof maasha Allah oo geel hadda laga soo celiyay waxa ay prefer gareeyaan okay taas waxay u sameynayaan waa dadka ma aragtay guurka cusub ama dadka ma aragtay in rabaan oo sirtooda banaanka ah okay ani taas midaan warka okay ani taa waxa warka qofka doonayo gabar aan wax baran ama jaahiliyad ah asaa jaahil ah ma aqaano macnaha waxbarashada mid koowaad waay mid labaad qofka hadduu dooranayo uu ku dooranayo gabadh inay wax baran wuxuu rabaa inan uu guriga kor uga soo qofulo taas jaahilnimo Allah oo ku hahay guriga oo guriga ku haysto wuxuu raba ka samaysto aan xaquuqdeeda uu ku tunto marka waxaan leeyahay Soomaalida gabadheeda wax baran ay is ogtahay at least wax bilaaw tuushin gal
gabdhaha ay doodayaan dheh markaas ragga u dooda gabar uma doodayo wax baro eeg haddiiba midka qofka la dooranaya ay gabadha tahay oo waxa lagu dooranaya waxbarasho ama waxbarasho la'aan ay tahay maxaa diidaya in gabar lagu bogaadiyo inay wax barato taas ayada ay ku xiran tahay inay waxbarashadeeda wado ama inay joojiso taas ayada ay ku xiran tahay okay ani ma ku bogaadin kariyo aad difaacaad galaysaa ani waxaan jeclaan lahaa had inaan waxaad gabaray wax baro ama tushin bilaawa dhadinta ha taas ayada ay ku xiran tahay gabadha wax siinaya okay taa markaa meesha uga soo tagno saddex qayb ama saddex iga sii gabadha aad ku dooranayso gabar wax baratay inay tahay saddex faa'iido iga sii gabadhan doortay inay wax baratay saddex faa'iido ka sii saddex faa'iido iga sii okay midda koo horta tan wax barata dhaqaalaha way ku ilaalinaysaa okay ma aha shanta farood ma sinno laakiin wad ما يتاني أنا أمين سنة هاي أو مسكحي كجرته. okay كذي جوابه. كود خلاوي. ama ali waxaad doonaysaa gabar wax baratay kirada kula dhigto ماي. في الحالة تقول شو خير سنة يبزق. لكن كده هي اللي ديبي. اللي نفسه هذا حاول قصص. okay marka saddexdii aan wali ka sugaya ana ka soo dhaxgal raalno ما جي خذ. أوكي. بدك هو شيء. okay مدة لبعض. أرديني واحد سكات قرا. stop da waxa ay kursi socde الجرا. ilaa khayr ka sii aliyo midda koowaad waad ii sheegtay كدوس midda labaad iyo midda saddexaad ka sugaya maxaa saddex reason ama saddex shay aad ku dooratay inaad wax baratay إني واحد برتة. inaad wax baratay أنت واحد برتة. ha اوكي تنكو كل شيء tan labaad waa inay ciyaalkeeda waxa uu si faa'iideysaa okay midda saddexaadna waxa waaye dhowaa lagu helay ay dhino tan saddexaad waxaan dooq mid saddexaad aan rabaa wax kale way kugu soo socdaan marka tan iska sii dhanay saataad kale u sii gashin okay midda saddexaad waa inay iimaan ii lahaataa iimaan adiga kula haataa ama iimaan ayada ay lahaataa lahaataa okay gabar wax baratay keeskeeda intaan kusoo xiraynaa hal bogaadina u diraa ani adi idiid ama aad ila dagaal ama hadii ila dagaal oo ku raaca inanta wax baratayo waxbarashadaada waxaad ugu faa'iideyn kartaa bulshada dhan aad ugu faa'iideyn kartaa maxaa yeelay hooyada fiican waa tiirka fiican like hoggaanka fiican waay hooyada hadday qalloocnaato ilmaheedana maasha allah wax baro ama ha baran laakiin hooyada hadday fiican tahay ya ilmo maasha allah oo diin leh oo edeb leh ay soo saareen marka gabadha hadday edeb leedahay diin leedahay akhlaaq leedahay ogow qofka tubaaka beerto timir uma soo baxdo ali yes su'aal labaad waxaan ku weydiinaa gabadha aad diiday saddex negative ka sheeg ama saddex shay aad ayada ku diiday soo sheeg تمام فردي بحكي caadi waay horta gabar iimaan lahayn lama qaadan karo gabar oo aan ku qabto okay iimaanka dhinac u bixi way fiican tahay in gabadha iimaankeeda iyo la doorto laakiin gabadh aan waxba baran waxba baran hadda geela laga soo leexiyey maana taas ma diiday ma rabtaa marka marwa gabadh aan waxba baran tan wax baran iyo tan wax baratayba tii igu soo aado calafkayga noqoto ani kulli ciyaalkayga hooyo u noqoto marka hadday waxaad ku dooratay gabar
inay wax baratay diin leedahay akhlaaq leedahay waxbarashada aad hadday ka dhawaajisay waxbarasho cinkee waay ilaa inta hadda geel laga soo celiyay waxbarasho ma galin dee qur'aan ha noqoto inay iskuul dhameysay jaamacad dhameysay kulley waa inay aqoon lahaataa okay meesha waxaa arkayaa adahan bareegaa jiidatay adahan bareegaa jiidatay yaa aliyo adahan bareegaa jiidatay marka waxaan arkayaa gabadha aad la socotid oo weli jaamacad soo dhigan hadda geel laga soo leexiyay ani saas u qaatay mayma ani haddii ani ahaanteed ani maxaa i weydiin lahayd oo iga weydiin lahayd qaybtaas qaybta waxbarashada like dumarka ama dooqeyga hadday waxaa iga weydiin lahayd okay aan lahayd ani waa dhamaysta meesha waxaa ku weydiin lahaa tan wax baratay sababta ku dooranayso maxay tahay waxaa ku dooranaysaa ma shaqada ay adhow ay heshaa ama tan guri inay iska fadhiisad ahaana kulley maxaa ku doortay tan wax baratay yes midaan tan wax baratay wax badan aan ku dooranaa okay manoo faahfaahin kartaa tan wax baratay wax badan aan ku dooranaa tan aan wax baranna wax badan aan ku diidaa faahfaahinteeda iga qabso okay waan ka sugaynaa gabadh wax baratay ayadile nafteeda wax ma baran waxay u baratay ilmaheeda waxay u baratay waalidiinteeda waxay u baratay walaalaheeda waxay u baratay qaraabadeeda gabar meel iska soo saartay ama wax baratay waa gabar oo boos weyn ooga soo baxday bulshada ku xiran dhan tan aan wax baran midda koowaad duufsiga degdegaa lagu duufsadaa haddaa laga soo celiyey geela waxaa la keenay magaalada aa keentay adi nin aad tahay waad guursatay aqalkaa lama joogaysid beriisaad doonaysaa gabadhii guriga joogtay haddii asxaab yeelato waa la duufsanayaa taas ma aaminsan tahay in oo dhegtu waxaa loogu sheegaayo oo la dhahaayo saa waaye reer baadiile maxaa u tahay adi xoogo isku xadno shab ninkaaga t v oo wareer oo screen touch keenno web wixii tabartaada laakiin gabadha wax baratay waa gabar ku fahmayso oo like adina jeebkaada fahmayso ayadana jeebkeeda fahmayso wixii ku habboon ya ay taqaano gabadhan geela laga soo leexiyey midda aan ku diidaya waxaa waaye ayada waxeeda waxaa wax hadda ay baratay hadda le ay soo gashay situationkan oo maantana nuurkan iyo magaaladan hadda ay soo gashay inantaasna hore ay uga jirta marta inanta wax baratay always she's the best hadda waxaan kugu raacay inaad dooratay gabar wax baratay ha laakiin maxaa ka leedahay maan qaldanahay ama waa saxanahay ma waa saxan tahay okay boqolkiiba boqol ma dhihi kar maku dhahayo boqolkiiba boqol waa saxanahay maku dhahayo ayagaa ku sheegeen boqolkiiba boqol inay tahay waxaa hadda meeshan like ka salaamayaa asxaabteyda inta wax baratay inta aan wax baran hadalkan dhankiina kuma socdo waa goobaabin oo qof oo bulshada oo qof waliba ku habboon in uu ogaado gabadha mujtamaca like sharaf u leh gabar wax baratay oo tiktok kunii keenaysan waxbarashada waxba ma caawinin gabar wax baranin aad dhaanto oo diinteeda akhlaaqadeeda iyo sharafteeda taqaan laakiin gabar wax baratay diin baratay maadi baratay oo banaanka soo taagan xoogo waxaa waaye ilaahay soo hanuuniyaa leeyahay midda saddexaad midda afaraad waxaa leeyahay hadalkan qof aan direct ugu ataagaraynaya male waxbarashada waxaa kasii muhiimsan wanaagga qalbiga iyo qofka shaksiyan soo isku ixtiraamayo marka dhammaantiina sharaf aad leedihiin waan wada salaamaa inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan iiga codsanayaa chanaalka hadduu niigu cusub yahay inaad subscribe noo saartiin haddii uu niigu cusbeen ood mar hore nala joogtay waad ku mahadsan tahay wada joogiina waxaan leeyahay u sheergareey asxaabtaada si wax badan oo ugu faa'iidaan muuqaalka haddaad wax badan ka faa'iiday wax in yar xataa ka faa'iiday comment nagu soo reeb caliyow sidaas yo asxaabteyda maxaad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijkooda waxaan soo gabagabeynayaa hadday ka helaan inay mid kale naga soo codsadaan haahe mar walba ayagaan diyaar unaa bis diyaar weeyaan waa u taaganna choiceka dhankiina waaye meeshaad noo jiidiin aa u jiidmayna sidaa iyo nabadgeliyo